soo laabtay akhyari assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maaqaan qadkii baa iska cuslaaday dad badan baa isoo wacay hal mar si maaragtay isdaba jooga ii soo wacay marka soo dhowaada aad baan idiin salaamahayaa sidaad u dhan tihiin sidaad ka arkaysaan ciwaankayga magaciisa xogta aanu helayna ayaa caddaynayso xukuumadda Kenya amar ku siisay inay joojiyaan qolyaha qasbadayaalka ee Soomaaliya qaska kaga wada waddanka Kenya gudaheeda garabka mucaaradka ah inay waddanka Kenya ka baxaan ama ay joojiyaan maxaa la yiraahdaa arrimaha ay ka wadaan iyo shirarka ay qabanayaan oo arkaan dawladda Kenya inay ku tahay meel ka dhac soo dhawaada aad baan fight gareynayaa qof ahaan xukuumadda waa la dhaliili karaa haddii ay dhaliil leedahay mucaarad waa lagu noqon karaa waa wax caadi ah waxaasoo dhan wax dhibaato ah ma ahan waa soo dhaweynayaa yacni qof kastaba inuu fikirkiisa dhiibto laakiin xogta rasmiga ah ee jirta ee aan wada wadaagayna ayaa waxay tahay inay tahay sharci darro in waddan jiro baarlamaankiisa ay tagaan oo waddan kale ay tagaan isla markaana halkaa ka bilaabaan foodo markii loo fiiriyo dastuurka ama shuruucda adduunka u taalo waa dembi qaran weey marka waxaan wadaagaynaa bal haddii ay jiraan xataa cid sharci yaqaan ah waanu ka codsanaynaa inay halkaa fikirkooda ka soo jeediyaan oo nala wadaagaan sida ay u arkaan fikirkiina waa xor buu idin yahay laakiin inaan caytano ama qabaa'il iyo waxyaabo la mid ah la aadna taasaa ceeba maanta Soomaaliya uma baahno waxay la tahay muddo dheer baanu soo dhimanaynay isdilaynay qabiil waxa uu yahay maanta ummadda Soomaaliyeed inteeda badan waxaad moodaa inay og tahay laakiin wixii fikir hoos saliim ah dabcan hala wadaago anu waxaan u arkaa arrintaas inay tahay meel ka dhac meel looga dhacayo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed qarannimada Soomaaliyeed raggaas haddii ay mucaarad noqonayaan ama xukuumadda ay dhaliilahayaan waxay runtii inay magaalada Muqdisho dhexdeeda ay hotel waddanku leeyahay ay ku shiraan golahooda baarlamaanka hotel maxay ugu shirayaan golay leeyihiin golahooda baarlamaanka inay arrinta ka soo jeediyaan yiraahdaan xukuumadda waxaas aanu ku diidanahay waxaas ay haleynaysaa inay wixii dhaliiloo soo macnaha ay tabanahayaan ay halkaa u joodiyaan bay ahayd laakiin aaditaanka Kenya la aaday taasi waa sharci darro waxaan filayaa dastuurkana meel ay uga qoran tahay ma jirto adduunka meel laga cayaaro hawlahaas oo kale socdana ma jiraan xaqiiqda markaan idiin sheego soo dhawaada aad baan idiin salaamayaa akhyarta sharafta leh marka xogtan idin la wadaagay waxa weeye xukuumadda Kenya ayaa u yeertay raggi waxay yiraahdeen waddankeena ka baxa carqalad baad samaynaysaan meel ka dhac waxay ku tahay xitaa dawladda Kenya inaad dhexdeeda idinkoo mucaarada ku shirtaan haddana matalahayo magaca baarlamaanka Soomaaliya idinkoo matalaysaan xukuumad baa doorateen gudaha Soomaaliya ku doorateen Kenya laguma dooran xukuumadda ummadda Soomaaliyeed iska leedahay haddii aad wax ku dhaliilaysaan ama aad doonaysaan inaad maxaa la yiraahdaa aad wax ka tabanaysaan Soomaaliya dhexdeeda kaga sameeya laakiin xisbi garab ah oo xaq jir ah ma soo dhaweyn doonto waddanka Kenya ma soo dhaweyn doonto iyo wax kasta isku day ummadda Soomaaliyeed ay burbur iyo kala qaybin horseedo Kenya arrintaasi waxa weeye waxay ka ciyaartay door muhiim ah amarna waxa lagu siiyay inay joojiyaan ama kansalaan hawlaha ay wadaan dalkoodina ay ku laabtaan ama Kenya ay ka baxaan xogtan idin la wadaagaya ayaa taas ah arrinta muhiimka oo loo yahay laakiin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed هذا dad doonay live inay soo fikirkooda ka dhigtaan in mudan baarista fayd gareeyay waad soo gali kartaan idinkoo video muuqaala waad soo gali kartaan waan idin fayd gareeyay cidii doonaysa inay fikirkeeda dhiibato oo xitaa halka hadal ka jeediso live video clip ah waad soo gali kartaan xukuumadda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed waxa la gudbeen inay soo dhaweeyaan mise in la xirxiro arrinta mudan in laga hadlayo taas ah kulleenu fikirka aan qabo nimankan magaca ay wataan waa baarlamaani waa sharci dejiyay waddanka waa indhihii ummadda Soomaaliyeed la rabay inay hagaan waa dadka la rabay inay ku mashquulaan waddanka sidii ciidan loogu sameyn lahaa waa rag la rabay inay ku mashquulaan waddanka sidii lacag loogu sameyn lahaa
amniga waddanka inay ku mashquulaan iyo sidii dalka loo dejin lahaa ayaa is aruursaday qaybo ka mid ah Kenya tegey markaana yiri maartay xukuumaddaanu ridaynaa waa la ridi karaa xukuumadda dabcan haddii ay qaldantay in ridi anaa qabo oo ay shaqadeeda loo igmaday ay ka soo bixi weydo mucaarad waa la noqon karaa waa laga hor imaan karaa laakiin qaabka looga hor imaanayo iyo waddada halka loo marahayo ayaa waxay tahay waxaan waafaqsanayn sharciga golaha baarlamaanka tan wadaagno si rasmi aan u wadaagno golaha baarlamaanka waxay matalahayaan shacabka Soomaaliyeed marka dan ma ugu jirtaa waxa kan dhacahayo nimanka Kenya isku aruursaday gobolay ka yimaadeen xukuumadda waxaan filayaa inay 100 maalmood inay jirsatay baan filayaa xilligii farmaajo xukuumadda ugu horeeyay loo dhaariyay madaxweynenimo 100 maalmood idin dhimaaya waxa soo qabtay iyo waxa soo haleeyay meelii laga soo dhaweeyay waa arkaynay waxyaabaha soconaya waa arkaynaa taa wixii fikirkeeda cid waliba aan waa ogtaa waa arkaysaa dooni maayo inaan ku fogaado laakiin arrinta mudan in laga hadlayo waxay tahay xukuumaddii haddii ay leedahay ra'iisul wasaare Khayran arkaynaa golihiisa wasiirada u yeeranayo maalin walba la shirahayo wax qabadkii ku daba taagan yacni meel kasta taagan ayaan arkaynaa anigu waxaan qabaa xukuumaddan inay tahay xukuumad wanaagsan waa fikirkayga qof ahaaneed xukuumadda dagaalamaysa corruptionka inay tahay baan rumaysnahay xukuumaddii aan sugaynay ummadda Soomaaliyeed maanta halka wacyiga ay ku jirto inay ka saarto inay tahay baan rumaysnahay waa aniga qof ahaantayda waana ku qaldanaan karaa waana ku saxsanaan karaa aanu ka tilaabsana tan ayada ah mar haddii xukuumadda tiri annaga nala xisaabtamo shacabku nala xisaabtamo shacabku xaq ma u leeyihiin inay la xisaabtamaan baarlamaanka maadaama ayaga baarlamaanka laftigooda shacabka golaha shacabka ay matalahayaan oo ay gobollo ka yimaadeen si ay xukuumadda u dhisaan sharciga waddanka u dhisaan meesha ma ku jirtaa in lala xisaabtamo oo ciddii aanu aragna carqalad noocaasa inay wadato odayaalkoodii dhaqanka loo yeero la yidhaahdo dadkani maqas baa meesha loo keena mise wax inay hagaajiyaan oo lala xisaabtama laftigood meesha ma ku jirtaa anigu waxay la tahay haa anigu waxaan soo dhawaynayaa fikirka ah inay xukuumadda u yeerto xukuumaddu maanta idaa waddanka xukuumad u ah qof ahaan waxaan dhigaa nimanka airbortka hadday kasoo degaan hala xiro waa shakhsiyan waxa aan rumaysnahay wey dembi qaran bay ku jiraan dibindaabiye qaran bay wadaan dumin qaran bay wadaan dhibaato ummadeed bay wadaan anigu waxaan qabaa in la xirxiro aan la dhihin waa baarlamaani waxaan qabaa aniga madaxweynuhu hadduu qaldamo sharciga inuu qaban karo la xiri kara aan rumaysno qof ahaan nimankaani waa dembi qaran bay ku jiraan meel bay uga dhaceen jiritaankii iyo magacii Soomaaliyeed meel bay uga dhaceen waa caada qaatayaal waa daba dhilifiin waxaan qabaa airportka Muqdisho in lagu xirxiro aad baan arrinta iyada qof ahaan u qabaa una soo dhaweynaya waa ku qaldanaan karaa mar waliba ogaada waa fikirkayga aniga aadan ah ma aha waxaan ama asxaab gooni ama cid gooni ah kala shiray ma ahan waa fikirkayga aadan ah waxaan qabaa in la xirxiro okay hal la xirxiro maxaa la samaynayaa odayaashoodii dhaqanka in loo yeero oo laga soo keeno gobollada ama ayaga laftigooda loo diro gobolladoodii ay kalsooni kala yimaadeen wax qabadkii loo igmaday inay yihiin dad qabanahayo lagula xisaabtamo gobolladii ay ka yimaadeen dhulka ay ka yimaadeen laftigooda lala xisaabtamo haddii ay caddaato inaysan shaqayn karin oo la jaan qaadi karin ummadda Soomaaliyeed horumarka iyo dowladnimadeeda ayna ka shaqeeyeen anigu waxaan qabaa inay shaqo la'aan ku dhacdo ummad nadiifa dhalinyaro Soomaaliyeed wax qaban karta diyaar u ah dalka wacyiga uu ku jiro inuu ka baxo ayaa buuxda oo badan kuwaas in lagu bedelo ayaan qabaa aniga qof ahaan waa fikirkayga aniga aadan ahaan ah taasaan aad u boorinayaa xukuumaddana waa ku dhiirigelinayaa waa rajaynayaa inuu gaaro kilibkan muuqaalka inuu xukuumadda gaaro Khayre waxaan ku leeyahay waddankan ra'iisul wasaaraad ka tahay xukuumaddaadu waa shaqaynaysaa haddaanu nahay dadka sida dhow ula socda arrimaha Soomaaliya aad baanu kugu ammaanaynaa kugu hambalyaynaynaa xukuumaddan xukuumaddeeni weeye hore ha u socotaanu leenahay haddii aadna tiraahdeen talana siiya haddii aad tiraahdeen idinkaanu idiin shaqaynaa amar waxaanu idinku siinaynaa nimanka airport markiisa degaan in la xirxiro oo idan ka baqani odan dhihin waa baarlamaan iyo waa kan ma ahan baarlamaan ma aha waa daba dhilifiin waa basaasiin cadow horumarka iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed la rajaynayo ay ka soo horjeedaan anigu waxaan qabaa nimankaas in xilka sida ugu dhaqsan yahay badan laga qaado yaa ka qaadayo u yeera odayaashooda dhaqanka soo aruuriya awalba odayaal baa keenay qabiil baa wax lagu qaybsaday nin waliba qabiil iyo reer buu ka dhashay odayaashooda ha loo yeero shaqo la'aan ha ku dhacdo taa ayaan le aanu dhimaayo gobol hebel bay ka soo jeedaan reer hebel bay yihiin qofka qaldan waa qof ummadda Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa in
ay ka weynaato tiraahdo reebel weeye reebel baa qaldan iyo reebel baa waxaas waaye reebel baa mucaarada waxaas waa qalad shakhsiga qaldan raalli khayr ma aqaan signalku maanta wuxuu meel dur ahaan marhayaa marka taasaa keenaysa inuu signalka iska tago aad baan idinkaga raali gelinayaa marka khiyaaray fikirkiinu waa saliim dalku waa dalkeena waxaan qabaa in laga weynaado maanta qaabkaan u fakirayno qabiiliga ah saadaashu ma xumo siday wax ku socdaan ma xumo cid waliba haddaan mucaarad ku noqono cidda muxaafad lagu noqonayo la rumayn doono inay noo shaqaysa aniga ma garanayo anigu waxaan qabaa xukuumaddan in la siiyo waqtigeeda shaqo wanaagsan bay qabanaysaa sida muuqato dibadda guule ayay ka soo hooyeysay sida aanu arkayno gudahana sidoo kale shaqooyin wanaagsan bay ka wadaa halla taageeraha la garab istaago waa sida aniga aan qaba qof ahaana waa sida aan dhiiri gelinahayo shakhsiyaadka noocaasana waxaan qabaa in lala xisaabtamo iska caadaystay in wax la dumiyo wax la qaso waxa weeye waa la shaqaaleeyay qabaa'iladii soo shaqaaleeyay oo u egmaday hawshatan oma aysan qaban shaqadii loo egmaday sidaa darteed beddel weeye taasaan boorinahayaa taasaan dhiirigelinahayaa taasaan soo dhawaynahayaa waa haddii la doonahaya dalkan inuu dal noqdo haddii kalena ana dee waxaa weye meesha lagu kala tago soomaaliya jiritaan bidan rabin qarannimo iyo maxaa la yidhahdaa dadnimo bidan rabin taas weeye midda iska cad oo runta ah cid walba in mucaarad lagu noqdo leeyahay hala dumiyo hala baabiyo waxa qalgelaya maaha marka arrinta ayada gabdhaha Soomaaliyeed weeye ayagaa u baahan inay badbaado helaan ayagaa u baahan qaran xooggan oo difaaca jiritaankooda soo celiyo inay helaan waxaa jiray kilib aad iyo aad u xanuun badan oo aan soo qabtay oo aan qaybiyo soo dhigay halkan sacuudiga oo si wuxuushnimo u jirdilahayo kole ninkaasi uu dhintay sida aan rumaysnahay birta taayirada lagu bedelo madaxa looga babajinayo mid kale meydana hoosta uga xiran yahay waa kollekaas dabcan waa dhintay qofkaas shahaadanayo laa ilaaha illa allah ku hayo madaxa laga jijabinayo gacmaha ayaa lugaha la isku xiray cadowga aanu leenahay Soomaaliya kana la dhasho muslimka ugu badan waxaan kaloo idin la wadaagayaa waxaad la socotaan dhulkii dekedaha ahaa ee Soomaaliyeed gebigeed waddanka Imaaraadka inuu gadanayo oo doonayo inuu qabsado maxay tahay sababta Imaaraadka dekedaha Soomaaliya u maamulayaan oo qabsanayaan deked bay leeyihiin midooda ku ekaadaan Imaaraadka micnuhu waxa weeye inaan dalkaasi xag iyo xag wax kala socdaa inayna jirin waa rumaysnahay xukuumadda inaysan ka yeelin kulamada carabaha lala galahayo wadamada muslimka oo la sheegay waxa ugu badan waxay ka hadlayaan in Imaaraadka loo daayo dekedahaas inay maamulaan ma rumaysni farmaajo inuu ogolaaday iyo xukuumadda Soomaaliya inay ogolaan doonto Imaaraadku inay qaataan dekedaha Soomaaliya fikirkaas aniga qof ahaan siyaasi ma yahay laakiin aragtidayda ka shakhsi ahaan ka Soomaalinimo ma soo dhaweynahay qofka ugu horeeyo mucaarad arrinta ka noqonaya ayaan ahay in dekedaheena iyo maxaa la yiraahdaa kheyraadkeena wadamo kale ay gacanta ku dhigaan anigu ma soo dhaweynayo qof ahaan siyaas ahaan ma soo dhaweynayo mana rajeynayo xukuumaddu inay yeeshay ama yeeli doonto ma rumaysni sababaha nimanka
dabadh ilfyada Nairobi loo keenay bayna ka mid tahay in maxaa la yiraahdaa xukuumaddan la yiraahdo hal rido oo tukumiya loo soo qaybiyo ay yimaadaan marka nimankani ma matalaan ummadda Soomaaliyeed danaheeda ma matalaan waa yani shakhsiyaad lagu shaqaysanayo weeye oo wiilashi gabro weeye imaaraadka ayaana ka dambeeya arrintan sida xaqiiqda marka xaqiiqda la isu sheego oo gacmo kale ayaa jiro qarin maayo wixii aan toonsanahay qof ahaan waxaan jeclahay inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago ayaan jeclahay hadba wixii aan helo xog ah sidaa darteed waa waajib inaan wada saaran shakhsiyaadka noocaas ah inaan qabiil lagu taageerin aan isweydiino waxa ay qabteen oo meelaha ay ka soo jeedaan iyo gobollada ay ka yimaadeen ay u qabteen aan isweydiino hal nin oo iskuul dhigay iskuul sameeyey miyaa taqaanaan hal shakhsi oo caafimaad geeyey miyaad ku taqaanaan dadka iyagoo ordahayo maanta waxay leeyahay anagu reebel baa wax loo diiday reebel baa kana aqliga ay wataan baa reebel ah reebel asagaa matalahayo meesha ku fadhiyo oo xilkeeda haysto muxuu u qabtay gobolladii iyo deegaamada ay ka yimaadeen asaga yaa la xisaabtamay in la isku wada xisaabiyaan anagu rumaysnahay baarlamaanka in la xisaabiyo xukuumadda la xisaabiyo ayagii baa diyaar oo taagan hana la xisaabtamo xukuumaddii baarlamaanku ma yidhahdaan hana la xisaabtamo xeer hoosaadkooda muxuu dhigahayaa inay sirti waddanka bixiyaan oo waddan kale ay tagaan ma dastuurka Soomaaliya miyay ku qoran tahay arrintaas waxay u taallaa guddoomiyaha baarlamaanka u taallaa ku-xigeenkiisay u taallaa dhalinyarada nadiifka oo Soomaalida baarlamaanka ku jiray u taallaa shakhsiyaadka la tuhunsan yahay ilaa iyo 60 ayay dhan yihiin